بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي سبحانه وتعالى يا قرآن كيسا إنه شيء إن نفكست أي وحوي دي على القرآن جريد أي دم دونتو معلم مع المحكمة لما أنت وحنكوا حكومنا هاي ودمشق runtii waxaa maanta magaalada Jigjiga ee caasimada dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ku geeriyooday madaxweynihii Khaatumo Dr. Ali Khaliif Galeyd oo runtii ahaa nin si weyn geeyiga Soomaalida loogu yaqaan oo runtii xilal kala duwan ka soo qabtay dowladii Soomaaliya heerka ugu sareysan ka gaaray Prime Minister dowladii 2000 lagu dhisay Carta ومدحونها كأها عبد القاسم يسوون رئيس الوزراء وكان نقضي طبعا حوي على خلف تاريخي سهل كان كومس وكوبي كرنو مركي جدا بيسوي ما أنت تاريخه تاعي سيدة بيشا استمناد لبا أكون لبعتنك وحوها مدحونه خاتمه ولا دورتين مدة لقيت شو واللي حصل كهر أما تضبط صنعة لبا يكون يافي طمنكي ديجان كسحدير لو دورتين مدحونه خاتمه علي خليف Galeyd runtii dhamaadkii bishii September ay soo gaaray magaalada Jigjiga halkaas oo mar uu yimid booqasho hadii la ku yahay isaga markaas gaar u ahayd ma jirin xanuun gaar oo markaas madaxweynuhu uu la ildaranaa ama uu Jigjiga la jiifay marka laga yimaado qofku markuu yahay qof waayeela xanuuna waa leeyahay Ali Khaliif baba official beedo TV-da ku jirta isaga dhowr jeer ba qodobada meel kala duwan ka jiray carabaabay oo xanuunada macaanka waa official beed wax loo wada qaabay hasi haatee geerida ayaa runtii soo shaabaxay saaka 3 saac ka hor dabcan markaas oo aan xiriir la sameeyay hadii la furan yahay dadka markay gacanta ku hayay madaxweynaha ku soo Jigjiga Ali Khaliif runtii وأنا جاي كسومالي سوى عن لغة يقان بوعام تاريخ بدنا لغة حسوسته مهمة بدنا لغة حسوسته جولة بدنا وسياسة دكجاري رنتي لورن كارل العرب بكر لغة حسوسته رنتي عاديات بانوجا حنا جريدة كتير من مدحوني خاتمه دكتور علي خليف Galeyd طبعا مركان حرير للصميمي مدحنا الدولة ديان كسومالي إثيوبيا وحينو حقيقيين إن جريدة مدحوني هراء إن لغة وضع بارتان runtii dhaqaatiir iyagu markaasi takhasus ku leh marka qof mas'uul saas ah kaloo geeriyoodo in ay baaraan bal xanuunkiisa waxa sababay iyo geeridiisa iyadoo aan ognahay nafkasta inay geeri ku xukuman tahay dhammaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada uu ka soo jeedo gobolada Sool Sanaag Cayn iyo qoyskiisaba waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo runtii qof ku weyn bulshada Soomaaliyeed buu ahaa waxa weeye caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo dhamaan waxa weeye familkiisaba oo runtii aan qayb ka ahayna waxaan leenahay ilaahay samiriiman naga siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun